nolosha alxaya kullahaana waa challenges nolosha gabigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay nolosha waa dadaal iyo caqabad la rabo in laga tallaabo keebaa diyaar u tahay ma inaad kan ka tallawdo caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid mise waxaad diyaar u tahay waralkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaalaa la raadinaya nabad baa la raadinaya challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horreysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaalla tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka u islaamay dhowrkaa qof oo u islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gedisan oo diin ka gedisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gedisan oo jaahiliya ah haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu qur-aanku ka warramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno صحابتي النبي يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام غربة الإسلام الأولى سيدا يوقع بحين ويو التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت الغربة الرفض ضمه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكت المامة سائل الجامع الصغير عن أنس بن مالك حديث كسار يأتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ashuru challenge yeebu nabigu tilmaamaya dadka waqti baa ku iman doona qofku diintiisa inuu haysto oo ku dheganaado ay la mid tahay nin dhuxul haysta dhuxul daba inaad qabataa waa challenge adag waqti ay sida diintu ku noqon doontaa iman doontaa ama xadiidka ibn mas'uud warinaya inna min waraa'ikum zamanu sabr litamassuku fihi ajru 50 shuhada minkum maalmaad dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka ka mid ah nabigu tilmaamay sida awgeed quraanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nebiyaa ka dhashay نبي بدر القرآن تلمامه في إسرائيل ونبي يعقوب إلى كيسي يوم حياة نبي يوسف ولا الذي ينور لماذا بدلي النبي مركز من نقضي أنبياء بدر نبي سليمان نبي هود مع سليمان أبيه داود نبي الله موسى أنبياء بدر الرب إسرائيل ودت صالحين القرآن كورمية بل إلهي وحقوق المامية إني كمد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ربنا سبحانه حكم إذا أئمة تطلقوا الضيضة ودين إلهي كل جي مركي أي كل صبرين إني يوحد حجستان يقين تودنا أي رسمها يعني لما مدنا مقلين وحن أي دين تهيستين وين رميسنا ويقين سنايا second to that obstacleski ka hor yimid dhibaatadii ka hortimina uma ileecin uma dabcin labada shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahay ay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale kuwaas reer banu israa'iil bay kamid ahay waxa kale oo ilaahay quraanka inooga warramaya group kale inay reer banu israa'iil kamid bal groupka kale anagna waxa ilaahay ku sifeeyay marka hore ilaahay wuxuu yiri waqata'nahum fil ardi umama reer banu israa'iil waa googoynay baa ilaahay dhulka lagu faafiyay منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كوا صوبا يكوا حنبا ويلها ينبا إلهي ليه
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwii kaga dambeeyay waa kuwii lumay فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون يقول كوا قداش دوحة مري قلو ولذا نحاول على مدى مركو هرا كتابك وين دحلين dadkii challenges ka soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sidee noo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool unbaynu islaamnimada dhaxalnay waliba aabbiyi hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warisu hada alkitaab asalkana waxaa la yaqaana qofka bini aadamkaah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga lexa jeclo badan yahay waxa si fudud soo gala حتى dhaqaale caadiga waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaha aabaha ka dhaxashay inta badan sayr-sayrsan dhalinyaradu wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi ورثوا هذا الكتاب وين حلين بالي حلبي كتابك وهذا عاد وامرك يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض مثله يأخذون وايس كدب بابي واحد دون أبي سبعين يوم خلي دور وسير وحده إن شاء الله إلهي بنو الدم بدافع طبعا إلهي دم بغولفة لكن هذا هدي مشكلة دوت ما دوا إلهي ليه مركز روسك غاضرية marka amalka waa ilaahay baa qafuur raxiim ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wada waa maxay ka soo baxay islaamnimo oo khilaafaya waxaana nafta ku sheekeynaya ilaahay waa qafuur raxiim ilaahay baa inoo dhaafi laakiin ma ha qafuur raxiim nama intuu rumeeyay wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore ay ka dhaafay markaan wadada saxaya wayatihim aradun mithlu ya'khudhuhu ba ilaahay tii kullabaad oo lamid haday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan ba ilaahay إلهي مركا وحده وركون ميان بلن إلهي كقادم إن يدي حق كسو قرادان ودين تنخسو قمان آخر إن يدن بيسو قادم قلوا النوعة ولك لنا إلهي وحده والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون هو كتاب قبقب سنة يبا إلهي مسكه بتضعيفه اللغة العربية يعني وحويان مركز قبقبته وقف آن رمي وحنين وكبحصه هل يا دمر كل قبطه يكسيبته وقف عادي يرسل لكن كان واقف ربا محي إنه حجسته كو حجسنا يبا إلى هيدي كتاب كان السلاة دوغية كو أنا أجر كودا ضيع ما يا إلهي إذا والله ما مدوه إن شاء الله سيغفر لنا عملت واسكها قاعد الدين وأرمى الدين تودم إنه قضاء إن شاء الله إنه سيغفر لنا كل السنة كل بينا إنه على هذا المذهب قاضنا إنه قاضنا مذهب التمسك بالكتاب إنه حج سنه جيل كهر الصحابة سيدي وقبح صبر يا كوبا ما واحد كسيني أفرتي صورة ضد القرآن كوبه الرئيس لما راح يسكوا أفقسيه أفر صورة ضد قيبة وجوه الرئيس القرآن كوسه الدقيق ما هي الروايات وإسراف ما فينا أفر تنسيه كله الرئيس نظرت لكن أفر تاسيني هنا أفرتي وجوه الرئيس هي بديبة علماء التلمام وسورة العلق أنت وجوه الرئيس اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آياتك وجوه وسورة المدثر آياتك وجوه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آياتك وجوه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آياتك وحيها هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون
علماء يدهدان وحيي كواد دي النبي محمد كوب بلابن وحوها وحي أنسي فضود لوش